waraad islaamay ciid wanaagsan assalaamu calaykum Soomaali Maxamed meel walba adduunka daafaha dunida ay ka joogtaan oo odaga Saciid Serbi idile ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair waxaan rajaynayaa dhamaantiin inaad si wanaagsan u wada ciideen annaga salaadan ciid waa ka soo baxnay Ilaahay naga aqbalo waxa waay magaalada iska wareegana anigii dhalinyaro badan oo wadankan Serbia ku sugan oo ah arday wax ka barata wadankan soo jeedin waxaan rabaa maanta in aan ardayda weydiiyo differentiga u dhaxeeyo ciida Soomaaliya lagu ciido iyo ciida Serbia sababta ay tahay waxay tahay Soomaalida adduunka meel walba way degaan qof walbana si gooni u ciidaa oo aan ka wado aniga hadda la soo dhaafay oo hadda ciidareeda maahna ciidi ka horeysay saa ogaadeenba Malaysia ku sugnaay oo Malaysia ku ciiday ciidan haddana waxa ku ciidaya Serbia marka waxaan rabaa ninkan odayga ah in aan mikrofoonka ku soo dhaweeyo professorka oo aan weydiiyo su'aalo yar oo ku saabsan ciida professor soo dhaw professor ku soo dhaw janaalkayga Saciid Serbia professor ku dhaw janaalkaaga dhammaan muslimiinta Soomaalida meel ay joogaan ciid mubaarak تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال maxay leedahay professor laba su'aal ku weydiina su'aasha ku weydiina waxay tahay ciid hadda la soo dhaafay ciidireeda ahayd iyo ciid weynadan ciid ka horeysay waxa rajaynayaa inaa ku ciid Soomaali Sooma niyo kuma ciidin inta ku ciidan ciid ka horeysay labada ciid ugu horeysay waxa ku ciiday Serbia niyo waana foreign niyo fahmino ciid ka horeysay ciidireeda naftarkeeda taa inta ku ciid ciidireeda ciid ka horeysay حمر 2024 حمريت اوكي سؤاشا ku weydiina waxay tahay maadaama ciidireeda ciid ka horeysay Soomaaliya ku ciiday waxaan rabaa differentiga u kala dhaxeeyo Soomaaliya ciida ku ciiday iyo Serbia hadda ciida ku ciidayso in aad differentiga u dhaxeeyo aan noo sheegto engineer meeshan ciideed waa pouring saaxiib fahmino sababtoo meeshan ma dareemaysid inkastoo muslimiin badan aysan ku nooleen that's why asleeya sababta meeshan ciideeda saas oo falxun tahay tan labaadna waa Soomaali badan ma joogaan mid saddexaadna waa micnaha bulshada oo meeshan joogto isku maantakeeda iyo waxeeda oo yar yahay teeda kalena badanaa hadda maalinka ay ku soo aaday waa weekend maaha maalin jimca ay ku soo aaday meeshan weekendigeedana waa ogtiin waa sabti axad waaye marka intaas sabab ah isleeyahay maadaama u dareemayo ciida hadda qof walba waa weekend uma aha maalin shaqo waa hadda laakiin muslimiinta dhan waa maalin waxay u tahay oo fasax ah marka sababta ugu weyn iyo sababta kale ee ah oo Soomaalida meeshan ku badneen iyo sababta saddexaad adaa qurbo joogtid gaar ahaan wadamadan Yurubta ma laga yaabo inaad ciid aad dareentid marka su'aasha ku weydiina waxay tahay professor waxa dhahday ciida u dhaxay ciida Soomaaliya ku ciiday iyo ciida hadda Serbia ku ciidayso different u kala dhaxay waxay tahay meeshan Somali community-ga ku yar Sooma aad okay marka sidee dareemaysaa ma u xiistay Soomaali ina ku ciido mase still waxa waaye waa la qabsanaysaa oo normal agtaada ka tahay niyo Soomaali horta in lagu ciido waa loo xiisaa iyo soonka labadaba horta meeshan soonkan kuma dareemaysid ciidan kuma dareemaysid waxa isleedahay niyo marka labadaas isoo dhow yihiin meesha ka guur saaxiib ka guur isleeyahay niyo u gooya kadibna soo laabo maalin ku xigta professor su'aasha kale ku weydiina waxay tahay maadaama aniga meesha kaaga soo horeeyay maanta waxa Ilaahay mahadiis ah waxa joogay Serbia ayadoo oosan hal qof oo Soomaali aysan ku sugneen ciido waxa jira ku ciiday Serbia hal qof oo Soomaali masaajidka igula mutukanin aniga kaliya Soomaali ka ahay maantana waxa jooga heer Soomaali ugu yaraan 7 qofood oo Soomaali ah oo aan hal luqad ku wada hadleen inay ila tukanayso so different u kala dhaxay waa ujeeda by the way su'aasha kale ku weydiina waxay tahay maxaa u xiistay hadda maadaama ciid ay tahay maanta sab ma u xiistay buskid iyo xaloo ma u xiistay maxaa u xiistay niyo Serbia saklaana ka jirta saaxiibkayga Serbia waa balad bila seeka حاجوده بس صب جرتوها وبلد بلا سكاه
ساكن ملا فاهمينه درسك كورن درسك دي لو يدي كور ساكن إني خوانك الملوك درس عدني باش ندرس انا ما كل فاهمينه درس بدروا درس كن اي وهي واحد وجهه فاهمينه إيه بقول خلاص إن وارنتاني إيه بقول خلاص زعيمك إيه داري إيه حاسة وجو فاهمينه حاسة مكبيع كرر سؤالك لو مهم أكو هاي سؤال شو قدام بس أكو يدينا بروفيسور وحواي نيو وحكولي هاي عيد ونكسن عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحكو فرح سنة ما أنت إن سكل إلى بأود عيدني صلاة دي صوتكني كفاية ودعبني أنت سوا إلى مهدي سؤال ما فهمت قعدونك وكبحنا إن شاء الله وحرجينا يا maalinta ay noqoto Somali community fara badan ina wadankan ku aragno waxa mar labaad mikrofon ku soo dhaweynaya the only legend Ozzy in the building Ozzy hali la watali ma fahant Ozzy Ali waa kana legend kan waa wataa inta soo maray qoraxdana qabataa dad madow aan la dhihin oo madoodiina Ozzy in the building nikan legend kan waa wataa aniga waxa ka mid yahay ardayda wax ka barato dalkan Serbia wuxuu u joogaa scholarship Ozzy ma qablo had Serbia ku sugantaa wallahi 7 months toddoba bilood Serbia joogtaa اوكي اوزي انت تضوي بلا جوجتد وعيد كوغو هريسي ا كو عيد سربيا سما عيدان ما عيد لبد واكو معناه على عيد لبا عيدردي عيد وينيده لبداس اللي كو ورفاده عيد الصومالي اكو عيدان ديفرنت او كل دحي ما نو شيء كرتا والله ديفرنس كو دحي waa la dareemi karaa qofka markuu waalidkiisa iyo familkiisa la ciidi jiray waxa way farxadaas iyo ka maqan yahay waxa way murug kale waa fahanti waxa way waxa rajeenayna dib u kulmno soo marka waxa dareemayaa ina macnaha fikirkaaga waxay ila tahay ina dhiisid waxa u xiista familkaaga ina la ciid familka u xiisay ina la ciido la baashaalo meeshana waxa way cidlada oo meel aan seeka lahayn ma fahmi kartaa seeka malaha magacaas uu bixiyay seeka malaha waxa laga wadaa sab ma jirto igaar sab oo sameysanayo oo soo wacay ma jiro soma saas waa dawaad marka waxa u xiista biscuit iyo xalwo iyo hilib iyo bariis wala iidan waxa way waa ka maqnaa cid waxa way waa seekada cid cunays mana waa iska taala guriga doo kale okay انت هذا baanta ina sabcuntud bulxuy tag soo wax dib maxaad inta fariin uga diraysaa familkaaga inay ku daawanayaan laga yaabaa maxaa leedahay hal iyo labo wallahi id wanaagsan dhamaan familkayga dadka dhamaan waa salaama waa ka soo anisi salaama sharaf شرفي كرام برادة ما سنتهاي وحكوا لي هاي عيد وناكسن كل عام وانتم بخير أنتم بخير هذه الدعوة دعونا سن مقالك أضيق سربيا وحو إذا كوسو جبجبينا يا لبا إري وده كان سربيا عاصمتوس إتا بلغراد وحكجرت وحل لها بلا ساكو إيد كستقول إيدا ماشان ساكو وحل لها مكجران سببتو حتى هاي وده كسومالي كوميونيتي أو ويري هاي arday wax ka barataa joogto ardaydana waa iska mashquulsan yihiin imtixaan iyo waxba u socdo soo in kasto ay naftirkooda ay meesha ku mashquulsan yihiin saacate still waa meel boring waxa ka wada Somali community ku yar insha Allah waxa rajeenayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ay soo gaari doonaan Soomaali wadankan ardayda waxay inta fariinka faraysaa qofkiisa ka haayo ciidan jaanis waaye waxa uu soo kol garan kara aniga gaariga wata waa qaada waa geena wala soo sakeena tali maxaa fariin u faraysaa cid alaal cid seeka ay saaleedaad horta Belgrade waa balad bila seeka ah Belgrade waa balad bila seeka marka wixii oo dhijel iyo cargo maakino ana soo gaaraan saaxiibayaal fahmino marka meeshan xamar waxa ka maqlay wax mul qal kariyo meeshan guriga waxa ku qalnaa nolol imaado loo su'aalo kale seeka macnaha maxaa ka wada dadka fahansi niyo seekada udxiya afcariimo ana afcariimo udxiya afcariimo waxa uu udxiya loo dhaa af Soomaali seeka loo dhaa seeka hadii la fasirana sabway intaas ka badan okay hadda ka fadlan okay tali waa maadsan tahay سبي بريس عد على عد ماشان سبي بريس هاي سفرين كومنتي أنا أقول صور رابطة أديت يا شرفي كرام وادي السلامة يا دمان سومالي ما حد نقول بعدين كجوكتان peace and love مقال كحيو وحيد والله دمان عيد وناكسن جالك سبسكرايب هلا صار وعضو سعيد سربي إذا لا مالي وناكسن سكلا أنا كجت سربي أنا جالسوا جارد دمان والسلامة يا نمط الصومالي ملك سجوكتبا وحلا هي عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير ciidan ciideeda ilaahay bashbashi barwaaqaha nagu gaarsiiyo waxaan maanta ku ciidnay waxaan halan ka leeyahay familka qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba hambaliyada ciid ayaan la wadaagayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhamaantiin waxaan leeyahay ilaahay dalka amnina nooga dhigo
horumarka iyo himilooyinka lagu taamayana ilaahay in noo rumayaan rajaynaynaa waxaan ku hadlayaa afka ardayda ku nool dalkan iyagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan iyo dadka ku nool Soomaaliyeed dalka ku nool waxaan leeyahay ciid wanaagsan aad baad mahadsantihiin كل عام وأنتم بخير وبالله التوفيق هدينا ودلعنا عيدا من أقول حل كذا